السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي القفك إن الله هلا محاضرة إذن سجدتنا شيخ نجيب محمد سديس. ولا لي قضب بدن إن كهد لا ينجعل قضبك يقول يا كبدن أني جوا أركي أيان مانت إن كجلاد لا يا قضب كاسي أو مانت حتى أتقف ولالك أرده إلى هذا صلاة التكوب مانت كدحبه markaasuu wuxuu ku arkayaa si kale markaasuu jawaabo kulul ku siinayaa oo kamid tahay aniga ma wax ii sheegaysaa aniga jaahil miihi war jaahil ma tihid laakiin waxa wanaagsan maalin walba in lagu soo xasuusiyo ilaahaadii hadii lagu soo xasuusinaynin oo xasuustiisa aadan qaadanin goormee ku dhaqmi doontaa oo diinta qaadan doontaa taas ayaaba fajacila maanta qof binaadan dhahdo soo bax masaajidka iraa siga dhansi kale isku bedelaa kasto adiga waxa ka dareemaysaa nacab iyo xusdaan kan salaad ku leeyahay aan salaad kuma leeyahay qofkaas balse wax sida aan u dhahayo waa in aan walaalkayga jidka wanaagsan oo jeclaa si uu asigana birka maalin aan ku wada aragno qiyaamaha jannatul firdaws aan isla ku wada kulanno aan dhahno ma sha Allah adduunyada xadaan ka joognay oo waxyaabaas aan ka harnay oo Ilaahay naga xaraantumay maanta intaan ku wada kulmo laakiin hadii aad wixii ka harin hadda aragto qof adiga oo sunna ka muuqato salaadiis tukana dadku waxay dhaayaan maanta ma loo bir leeyahay sheekh Soomaaliya lagu ma noqdano ereyo badan ku dhaayaan balse waxa loo baahan yahay mar un adiga hadii aad u soo jeesatay inaad diintaada adkaysato hadalkeed dadku dhaayaan iska daalaag hadda waxa ogahay hadii aad noqotid fanaan abwaan iyo maxaa kale kuwan magaalooyinka sigaarka ku cabaayo qamrada cabaayo haddana noqoto qof walba ku arko wuxuu ku dhaha ma sha Allah ninkan waa hormaray way arag waa indha dheer yahay yaan ku sii dheeraan insha Allah waxyaabo badan ka hadli doona hadduu alle idmo walaalayaal waxaan idin leeyahay noqdo kuwii